kulanti waxaan daawadayaal soo dhawaada wararkii warbixinadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka ee warbaahinta ogaal waa 19 daawadayaal bisha Febraayo 2021 qodobada wararka caawa aan barnaamijkeena ku soo qaadanayna waxaa ka mid noqon doona maamulka Puntland oo si adag uga hadlay rabshadihii ka dhacay 24 saac ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho Sheekh Shariif iyo weliba sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo dilhaan isaga soo guuray hoteelkii ay deganaayeen ee u dhawaa daljirka Daasoon wuxuu nabadoon xaad ka yiri weerarkii lagu qaaday dibadbaxyaasha shir xasaasi oo ka socda guriga senator Muuse Suudi iyo guud ahaanba wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho ayaan daawadayaal ku soo qaadan doonaa wararkeena habeenimo ee isla warbaahinta ogaal iyo Turkiga oo isagana la sheegay inuu qorsheynayo in faragelin military oo toos ah ku sameeyay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo xiiso leh ayaan ku soo qaadanaynaa dhabaha dambe ee warbaahinta ogaal daawadayaal qodobada wararka caawa oo diyaar garooba faahfaahinta wararkaas oo dhameystiran daawadayaal dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu war ka soo saaray xaaladda magaalada Muqdisho ee 24 saac ee la soo dhaafay qalalaasaha uu ka socday waxaana maanta dibadbaxyaal lagu rasaasiyay magaalada Muqdisho kuwaas ay hogaaminayeen qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka Puntland ayaana waxa lagu xumaado ku tilmaamtay talaabooyinkii u dambeeyay ee xalay la saaka ay ciidamada dowladda ku bartilmaameedsadeen musharaxiinta mucaaradka ay ugu banaanbaxa ka waday Muqdisho bay lagu yiri qoraalkaasi waxayna sheegtay in falalka ay ciidamadu ku kacayaan ay ka dambeeyaan biir madaxda dowladda federaalka inay horseed u noqonayaan qalalaasyo xasilooni daraka oo la santa dalka xilli la sugayay in doorasho ay ka dhacdo gudaha Soomaaliya waxaana sidoo kale qoraalada lagu yiri waxaan ugu baaqaynaa dhammaan mas'uuliyiinta dalka inuu caqligu taliyo oo dhiig loo daadin kala aragti duwanaanshiyo siyaasadeed iyadoo lagu xalin karayo sifooyin kale oo la habboon lana ilaaliyo dimuqraadiyadda curdunka ay haysano fursado aan loo siin buudiyay ururada argixisada iyo inay helaan siyaabo ay ugu soo noqdaan magaalada Muqdisho ay dhibaatooyin uga geystaan sidoo kalena waxay ku baaqeen inaan dhiig loo daadin kala aragti duwanaanshiyo siyaasadeed ee gudaanba arrimaha Soomaaliya hadalkan ayaa imaanaya xilli uu xaalka Muqdisho kacsanaa xalay ilaa saaka iyadoo ay ciidamada dowladda rasaas u adeegsadeen banaanbaxyaal ay goominayaan musharaxiinta madaxweynaha midaas oo dabo ku sii shiday xiisadii ka dhaxaloosaneed dowladda iyo weliba kooxaha mucaaradka madaxweynayaasha Xasan Sheekh iyo weliba Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxay goornabad isaga soo guureen hotel Naasahab loo doolo yaqaan Maayda u dhow daalada daljirka Daasoon sida iyaga warbaahinta ogaal media Sheekh Shariif iyo Xasan ayaana dib ugu laabtay xarumihii ay ka deganaayeen Muqdisho iyadoo ay sii galbinayaan ciidamada ilaaladu kadib markii ay ciidamada xoog ka hor istaagtay banaanbax ay iclaamiyeen inuu maanta ka dhaco taalada daljirka warbaahinta ogaal ayaana waxa ay qaar ka mid u sheegeen in ilo ka agdhow labada madaxweyne waxay gelinka dambe maanta ka qayb galeen kulan ay isugu imaanayeen midowga musharaxiinta mucaaradka oo saaka qaarkood la rasaasiyay xilli oo rakacayeen dibadbaxyaal aragtidan arrintan ayaana imaanaysaa xilli xalay weerar ku qaadeen ciidamada Gorgor Hotel way ka soo guureen labada madaxweyne kadib markii la wareegeen gacan ku haynta fagaaraha taalada daljirka Daasoon waxayna iska caabin xoogan kala kulmeen ilaalada madaxweynayaashii hore xaaladda magaalada Muqdisho ayaana caawa mid degan iyadoona isu socodka gaadiidka dadweynaha ay dib ugu soo laabteen guud ahaanba waxaana furan goobaha ganacsiga ee guud ahaanba magaalada Muqdisho wixii qalalaasay maanta dhacay kadib magaalada Muqdisho ayaa hadda waxa ay tahay mid degan oo ay jawi nabadoon ku jiraan dhammaanba dadka ku nool nabadoon Maxamed Xasan Naxaad ayaa waxa uu si kulul uga hadlay rasaasta ay ciidamada dowladda saaka ku fureen banaanbaxyaasha ay hogaaminayaan qaar ka mid ah midowga musharaxiinta xilli ay marayeen wadada garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho nabadoon Xaad ayaa nasiib daro ummadda Soomaaliyeed soo wajahday ku tilmaamay talaabooyinkii u dambeeyay ee ciidamada dowladda ku beegsadeen midowga musharaxiinta iyo dibadbaxyaashii wuxuuna uga tacsiidiyay ummadda Soomaaliyeed waxaan cambaareynayaa dushan uga tuuraynaa weerarkii baalnimada ah oo gardaro ah oo ay waafaqsaneen sharciga oo amarka leeyahay madaxweynihii hore xilligiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taariikhda xumadaas inay ku dambeysana waa nasiib daro ayuu yiri waxa uu si weyn uga cambaarayay weerarkii xalay ciidamada Gorgor ku qaadeen madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku sugnaa hotel Naasahab oo loo yaqaan hotel Maayda aadna ugu dhow taalada daljirka Daasoon nabadoonka ayaana sheegay in Farmaajo ku dambeyn doono buujina meesha ay mareen kali talisiyadii ka horreeyay isagoo u soo jeediyay inuu isdaba qabato isla markaasna uu aadi
uu eedi doono buu yiri tallaabooyinkii u dambeeyey uu ku bartilmaamaysanayay musharaxiinta iyo weliba dadweynaha cabiraya afkaartooda sida uu hadalka u dhigay. sidoo kalena wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in beesha caalamka ay weli aqoonsan tahay madaxweynaha wakhtigu ka dhammaado, wuxuuna uga digay wakiilada beesha caalamka inay sii joogteeyaan taageerada villa Soomaaliya maadaama lagu caburinayo shacabka Soomaaliyeed. hadalkan ayaa imaanaya xilli saacad kadib markii ciidamada dowladda ay rasaas hubiyeen banaanbaxyaal ay hogaaminayaan qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, taasoo keentay in iska horimaad uu ka dhaco labada dhinac. waxaana weli taagan magaalada Muqdisho tahay caawa mid degan oo aan wax dhibaato ka jirin guud ahaanba. saraakiil xildhibaano iyo xubno ka tirsan dhinacyada beelihii ay ku kulmay guriga uu ka degan yahay degmada Kaaraan Senator Muuse Suudi Yalaxo ka tirsan golaha aqalka sare ee Soomaaliya. Muuse Suudi oo dhowr jeer goobaha fagaaraha ka sheegay in farmaajo kaliya taliye mucaaradna u yahay hoggaanka uu dalka ku maamulaya waxaa adag in xog badan laga ogaado waxaa la isku waafaqay shirkaasi. saraakiisha ku sugnayd kulankan qaarkood ayaa waxaa tibaaxay in marxaladda dalku ku jira laga arrinsanayay, iyadoona madaxdii hore ee dalka isku soo beel yihiin Muuse Suudi wararkii ay ka badbaadeen lagu kharijin lahaa xalay lagu soo hadal qaaday sida warbixintan ku helayno. Senator Muuse Suudi Yalaxo ayaana la sheegay inuu hub iyo gaadiid dagaalaysto ayaa mar ka mid ah hogaamiye kooxeedyadii ugu culusla soo maray magaalada Muqdisho, isagoona ka hor 18 bishii Febraayo 2006 aysan ka awood badin kooxdii maxaakimta Islaamiga. dowladda Soomaaliya ayaana il gaar ahaaneed ku haysa dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ay wadaan kuna aadan inay xaniyatabad ku sameysa dowladda, balse aan laga aqbali doonin sida ay mas'uuliyiinta dowladda dhexe sheegeen. banaanbixii ay musharaxiinta ku baaqeen in jimcaha maanta uu ka dhaco magaalada Muqdisho ayaa gebi ahaanba baaqday, iyadoo wax banaanbaxa uusan guud ahaanba ka dhicin magaalada Muqdisho maanta. waxayna musharaxiinta mucaaradka ay meelo fagaaraha ka sheegeen in la soo weeraray islamarkaasna ay dilal ka badbaadeen oo ay lagu khaarijin lahaa sida uu sheegay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. ugu dambeyn daawadayaal maamul goboleedka Puntland ayaa maamul goboleedkan Jubbaland ayaa isagana waxa uu cambaareeyay weerarkii maanta iyo weliba sidoo kale banaanbaxyada ka dhacay magaalada Muqdisho. Jubbaland ayaa si weyn u dhaleeceysay falalkii xalay ilaa saaka ka dhacay Muqdisho, iyadoona wax laga xumaado ku tilmaamay in ciidamada dalka loogu talagalay inay la dagaalamaan cadowga loo isticmaalay in lagu weeraro mas'uuliyiin ka tirsan saamilayda siyaasadda ee dalka. dowladda Jubbaland waxa ay nasiib daro u aragtaa baa la yiri in dowladda federaalka ay waqtigeedu dhamaaday, iyadoo awood kartay inay kala shaqeyso in xal siyaasadeed la gaaro kala duwanaanshaha afkaaraha, inay qaado tallaabooyin guracan oo ciidanka dalka u isticmaashay si ka baxsan sharciga si lamid ah siday ku samaysay baa la yiri gobolka Gedo. war-saxaafadeedkan uu ku siixinaa madaxweynaha maamul goboleedkaasi Jubbaland Axmed Madoobe ayaa waxa ay si adag u dhaleeceeyeen villa Soomaaliya, iyagoo sheegay in villa Soomaaliya aysan marnaba aysanin go'aanka wada hadal, markastana ay tahay mowqifkooda caburin iyo weliba awood, taasoo ay ku sheegeen inay tahay mid sharciga jebinaysa. guud ahaanba intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa warka caawa tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.